looga furay xarun caafimaad galbeedka magaalada London iyo Shababush oo lagu magacaabo Shababush Health Center waxaana ka howlgelaya dhaqaatiir isugu jirta Soomaali iyo ajnabi kuwaasi oo ku takhasusay guud ahaan daaweynta cudurrada kala duwan. dhaqaatiirtaasi Soomaalida iyo ajnabiga ee Shababush Health Center waxa ay ku daweynayaan guud ahaan cudurrada guud, cudurrada uur ku jirta, kuwa haweenka iyo kuwa carruurta iyo guud ahaan arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka. xarunta Shababush Health Center dhaqaatiirta joogta waxa kale ay kugu talagaleen inay ku meel mariyaan si sharciyeysan talaalka dadka aadaya xajka iyo cumrada iyo dadka kale u safraya meelo kala duwan oo dunida kamid ah iyo waliba buuxinta foomamka iyo arrimaha caafimaadka dadka qaadanaya laysanada BCO iyo kuwa kale gawaarida. waxa xaruntaasi Shababush Health Center ay ugu talagashay dadka ballanta isla maalintiiba in loo dhigo dhiigaga iyo guud ahaanba waxa kale laga qaadanaya in isla maalintiiba jawaabta la siinayo. haddaba bulshooyin la moogaan meel kastoo aad joogtaanba inaad la xiriirtaan xarunta Shababush Health Center halkaas oo ay joogaan dhaqaatiirtii Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah oo waliba Soomaalidu af Soomaaliga ay kugu la hadlayaan. meel kastoo aad joogtaan baxo beegsada xarunta caafimaad ee galbeedka magaalada London iyo Shababush Health Center. kulanti wanaagsan oo aan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Late Night Show oo xilligan oo kale ka daawataan TV-ga Universal. mawduuca caawa aan ku soo qaadanayna haddii Allah awood la yiraahdo waxa ay tahay xanuunada dhiigkarka waxa keena iyo waxyaalaha xanuunka dhiigkarka iyo waxa keena iyo sida looga hortagi lahaa iyo xaaladda si loola dadaali lahaa oo markaas loogu heli lahaa daawo joogto ah. barnaamijkan waxaa sabab u ah inay suurto gal Ilaahay ka soko Walking Clinic oo ayagu dhaqaatiir Soomaaliyeed isku tagay oo mar walba diyaar u ah in ummadda Soomaaliyeed wixii caafimaad ah ay ka haqabtiraan baahida ay u qabaan haddii Ilaahay yiraahdo hadday joogi lahaayeen UK iyo hadday joogi lahaayeen dunida inteeda kalaba. ciwaankooda ayaa mar walba shaashada idin soo saarayna insha Allah tacaala saa la hadashaan markaas aad xiriir toos oo la yeelataan iyo xarumaha ay ku leeyihiin waqooyiga magaalada London iyo waliba galbeedka magaalada London ee xaafadda Shababush. caawa saan hore u sheegayba mawduuceenu waa dhiigkarka. Dr. Abshir ayaa marti igu barnaamijka mar kale kana tirsan dhaqaatiirta Walking Clinic. barnaamijkaanu dhiigkarka ayaan nooga hadlaynaa. wuxuu si gaara u taabanayaa ragga da-dooda 40 sano ay ka weyn tahay isla mar ahaantaana xanuunka dhiigkarka uu hayo ama se isaga shakisan iyo dhibaatooyin ay la kulmaan oo aanu dib ku xusu doono haddii la yiraahdo. doctor soo dhawo mar kale. aad iyo aad ayaan u dhawaaqay maasantahay Xafiid. bal warbixin kooban waxaa naga siisaa dhiigkarka. dhiigkarka waxaa la dhahaa wadnahaas la socotid wadnaha uu garaacaa si uu dhiig u qaybiyo jirka bini'aadamka uu qaybiyo isagoo gaarsiinaya oxygen iyo sokorba gaarsiinaya glucose. marka garaacitaanka wadnaha ayaa la cabiray waxaa la ogaaday in ay jiraan xad isagoo lagu cabirayo millimeter mercury wax la dhaho ayaa la ogaaday xad oo ah 120 ilaa 80 inuu xad aad u wanaagsan uu yahay. minimumkan hoosena uu noqon karo 90 to 60 oo kale millimeter mercury ilaa intaas inta u dhaxaysa oo kale inuu qofka normal yahay. sometimes ilaa 130 xataa waa normal. laakiin waxaa la ogaaday haddii garaaca wadnaha xoogiisa uu ka bato 140 90 waxaan ku magacaabaynaa markaas dhiigkar ayaa jiro. asaa dhiigkarkaasaan u kala saarayno 3 darajo u kala saarayno. hadduu 140 uu yahay darajada koowaad aa dhexe. haddii aad ka gudubtid 160 ilaa 100 asagana darajada labaad. haddii 180 ilaa 110 uu tagana darajada saddexaad ee aad maasimo ah ayaan ku magacaabaynaa. marka xoogaas oo u garaacaya zaa'idka ah pressurekaas ayaan waxaan ku magacaabaynaa xididada uu ku gaarsiinaya ayaan ku magacaabaynaa high blood pressure ayaa jira ama dhiigkar ayaa jira qofka lagu magacaabaya. maxaa keena marka hore asalkiisa? waxaa keenaya laba loo kala qaybiyaa dhiigkarka. essential mid la primary oo koowaad ah oo 80% kaasa ugu badan adduunka. iyo kan labaad secondary lahaa ama kaawsahooda waa la yaqaanaa. kan koowaad waxaa loo malaynayaa cusbada aan isticmaalayno oo hadda ayaa aad u tiro badan saltiga oo cuntada ku darsanayno. meeshii 2 gram loo baahnaa waxaan isticmaalnaa 12 gram. meel walba ku jira hamburger inta ku jira. kaas waxay keenaysaa waxyaabaha ka qayb qaadanaya in uu maxaan ku dhahaa dhiigkar oo nagu dhaca ayaa u sababa. waxaa kaloo keenaya stresska nolosha welwelka badan leh ayada laftirkeeda wuu ka qayb qaadanaysaa. waxaa kaloo la arkay nolosha sedentarida fadhiga tirada badan dhaqdhaqaaqa aan lahayn ayadana way keenaysaa. waxaa kaloo ayadana ka qayb qaadanaya culeyska miisaanka. saa adduunka hadda la socotid adduunka wuxuu u badanaya dadka in miisaankii uu bato ayaa loo badanaya. waxaa la arkay dadka sigaarka cabo ayagana aad u asagna cirka u galaya blood pressure ku badanaa. alcoholka laftirkiisa uu ka
ka qayb qaadanaya. daawooyinka qaar ka mid ah oo la isticmaalayo loogu talay maskaxda iyo waxyaabahaas ayagana oo antidepressive antipsychotic qaar ka mid ah daawooyin laftirkooda iyo cortison qaar ka mid ah ayagana blood pressure cirkay gelinayaan. marka sababo fara badan la isku daro dadka waalidkood qabay oo genetically dhaxal ahaan ayay ugu fudud yihiin inuu ku dhaco maxaan ku dhahaa especially dadka iska dhala dhexdooda oo walaalaha isaga guursada oo kale ayagana aad ayuu blood pressure-ka ugu koraya. qaybta secondary-ga ah qaybta labaad waxa waaye waa la garanayaa sababta keese. waxaa for example hadduu ku dhaco keliya beel ama keliya dhibaatay ka dhacaan dhiikar uu imaanaya. haddii qofka diabetes sokor uu ku dhaco diabetes wuxuu keenaa arteriosclerosis xididadii adeeg noqonaya ayaga laftirkooda wuxuu ku dhacay blood pressure-kiina kor u keenaa dhaawac fara badan uu asagana keenaya. haddii qofka thyroid ku dhaco oo aad u shaqaynayo wuxuu keenaa asagana blood pressure oo high ah ayuu keenaya. hadda maxaan ku dhahaa waxaa jira kelida korkeeda dheecaan ku yaalo oo lasoo saaro asagana tumor nooc ka mid ah kansar aan ahayn oo banaanya ah oo pheochromocytoma la dhaha ayaa jiro dhacaan fara badan soo saaraya oo asagana keenaya. haddii aad ka bixisid aqashidna qofka wuu roonaanaya. marka qaarna waa qaar la yaqaano secondary qaarna waa qaar essentialka 80% kan essentialka ah oo aan la garanaynin laakiin loo malaynaya inta hadda kuu sheegay ayaa aada ugu badan yahay. waa gartay calaamadahiisa xoogaa yar balka calaamadaha badanaa waa aamusan yahay. qaar ka mid ah qofka wuxuu kuuga imaanayaa waxyaabo kale kuuga imaanaa ama madax xanuun oo fudada kuuga imaanaa ama waxyaabo kale u imaanaa. marka hadhow adiga aad jeeg garaynaysa dhakhtar ahaan aad fiirinaysa dhiiggiisa cabirtid arkaysaa inuu dhiirka cirka ku jiro. qaarka waa silent calaamadahaas iska aamusan yahay sanooyin badan qofkana ma sheeganayo. qaar marka calaamadow la imaanaya calaamadow qofka la imaan kara waxa waaye tiredness daaluu la imaan karaa madax xanuun tiro badan oo dhinac gadaal ah ayaa qaban kara. sometimes epistasis sanka xataa dhiig ka imaan karo brusharkii oo zaa'id noqdo darteeda ayuu ka imaan karaa. marmar xabadka ayaa culeys uu ka korayaa oo neefta macnaa qofkan wuxuu ku leeyahay cariiriyan dareema neeftii ay ugu dhigan wax saas oo kale ah. wuxuu leeyahay tayadan ahay cariiriyan dareema weakness aan dareema. marka calaamadaha waa calaamado oo generic ma aha calaamado oo absolutely aad dhaysid waxaan macnaha marka hadhow aad cabirtid qofka ayaad fahmaysaa in blood pressure-ka uu kacsan yahay uu zaa'id yahay especially nervous qaar ka mid ah ay dhahayaan aniga nervous aan mar walba noqdaa dhiikar u qaba maqlino marka la nervous ay ka dhaaf ninkan waa dhiikar u qaba. marka nervouska adigana calaamad kale oo muujinayso inuu pressure-ki aad u kacsan yahay oo kale ayuu ku siinaya. calaamadaha oo noocaas oo kale arkaysaa. waxaad ka hadashay dadka qaarkood inuu san ku gororo dhiig ka yimaado mararka qaarkood kuleylada xilliga aadka kale dadka qaarkood sangoror baa ku dhacay inaan la isku khaldinin ma kuu muuqataa mise aad iyo aad waaye sababtaan kuu sheegaa marka kuleylaha uu jiro dhiig karka dhiig hoos u degaa because marka kuleyl korka ku dhaco vasodilatation waxa la dhahayaa jiro xiidada way weynaanayaan badanaa blood pressure hoos u dhaco. haddii aad aragtid dadka collapse noqdo jidka ku dhacaya waxa u sabab ah low blood pressure ayaa badanaa dhaca blood pressure kor uma kacaya. marka sanka dhiig ka imaanaya ayaa waxaa loo kala qaybiyaa sabab reason oo blood pressure-ka keeni kara sabab reason oo general caafimaadkiisa kale ama meesha oo xubka saaran oo sanka gudihiisa ayaa khafiif ah oo dilaaci kara waxyaabo kale ayaa keeni kara oo loo kala saaraa. marka waa runtaa. waa gartay waxaad kaloo ka soo hadashay intaanan khadadka telefoonada fursad siinin cabitaanka sigaarka hadda waxaa soo baxday ba la yihahdo shiishad ama badeecad waagii hore waxaa cabi jiray dad waaweyn hadda waxaa arkaysaa ubad yaryaro 14 jir 15 jir cabaya saameyn intee laeg bay ku yeelanaysaa markay koraya cabdixaafid taas waxaa aad marka laga reebo horta dhiigkarka waxaa aada usii badan doono kansarka ku dhici doono because waxaas dhowr mar 100 jeer ka xoog badan tahay shiishada sigaarka marka loo eego tobacco kaliya leh ma ka samaysan waxyaabo badan ay ka samaysan tahay marka problem oo neefta ah kansarada aad ugu sii badanaya caruurta noocaas oo kale xataa iyo bareenkooda hadhow fakarkooda iyo kabajta awoodoodii waxaas oo dhan ayaa isbedel weyn ku dhacaya shiishadan hadda oo laga dhigtay wax caadi ah. waa gartay waxaad ka hadashay oo kale xaydha dadka hilibka badan leh ama shilista waa maxay xiriirka ay la leedahay marka blood pressure-ka waxaa la arkay dadka cayilaan maadaama maxaan ku dhahaa gaarsiinta dhiigga la gaarsiinayo iyo sariisana aada u fara badan
obesity oo dhan culeys oo dhan cudurro aad u tiro badan oo sokor dhikar kulli way wada wataan marka waxaa la ogaaday caafimaadka inuu ku jiro markuu dhoofka xoogaa miisaankiisa iyo dherarkiisa ay isleeyihiin laakiin haddaysan islahayn oo miisaanka uu zaa'id yahay blood pressureka aad ayuu wadnaha waxay ku kallifmaysaa inuu xoog u garaaco dadkaas weli wadnaha ku dhici doona wadnihii ayaa halaabaya aakhir heart failure a ku dhacay dadka aad u cayilan dhibaato u imaan karta marka wadnihii wuxuu sameynaa isforce ama xoog ka badan kii looga baahnaa jir khafiif ah hagaag daawadayaal waa maqlaysaan dhakhtarka taladiisa iyo waxaanu mawduucan caawa ka hadlayno khadadka telefoonada idiin furaynaa waagu markuu baryo salaada tukatid ilaahay tala saara cagaana wax ka day fadhiga ka kaca hala ordo jimicsi hala sameeyo ayuu dhakhtarku leeyahay ilaahayna hala tala saarto wax la cunaya la iska waardiyo fadlan waxaan ka codsanaynaa markaad khadadka telefoonada soo gashaan in aad marka hore aaladaad naga dhegeysanaysaan ama naga daawanaysaan iska baktiisaan si adiguna aada wakti fiican u hesho dhakhtarka ula sheekeysatid asxaabta kaleoo kaa dambayso oo daawanaysana ayaga laftigooda ay wakti ay dhakhtarka kula hadlaan u helaan mawduuca aan ka hadlayno waa mawduuca ku saabsan dhiikarka wixii ka baxsan fadlan hana weydiinina qofka u horeeya halow qofkaas ima maqlay doctore xanuunadan marka ma leeyihiin daawo ma leeyihiin aad iyo aad ha dhiikarka daawo way leeyihiin waxaa loo qaybiyaa daawooyinka oo la siiyo caadi ahaan tabletyaasha 4 nooca loo qaybiyaa oo la siin kara qaar treatment waxay aadaan wadnaha laftirkiisa oo xoog u garaacaya ayaad joojin kartaa mechanism waxay ku xiran tahay habka saa u fahamsan tahay qaar xididada ay xoogaa ku weyneynayaan haddii xidid la weydiinayo biyaha dhex maraya waa si tartiib u marayaan haddii laakiin tubada ay yaris ka dhigtid xoogu biyaha ku maraya taas waa dadka arteriosclerosis qabo oo sokorta qabo xididadu adeeg noqdaan pressureka pressureka zaid u noqon qofka cabaar ku jira fursadii hello hello السلام عليكم calaykum salaam soo dhawo walaal waa dhaweeye waa idin salaama adiga iyo daktarka marka hore waa kaa qaadnay magaca walaal xasan maxamuud maxamedaa la yidhaah xasan waxaan joogaa wadanka horan soo dhawo xasan maxaa jeceshaa dhakhtarka inaad weydiisid wallaahi waa sheegaygii waxaan inaan weydiiye rabaa horta waa xanuunsanahay allah ku caafiyo in badanaana xanuunsanahay marka xatee wadankan aan joogo waxaa la igelshabaha la yidhaahdo scan waa la igelshay dhiigag waa la iga qaaday wax walba waa laigu mar walbana waxaa laileeya waa fayowda ximin ii fayowna ma qabo inta amba muruq amba ximinaha ay xanuunayo dhabarkaasa igu daronan ka dhaqaaqi karin garbaha isgalayaashooda xibin fayaaboor dhaqaaqaysa ma qabo imisaa jirtaa xasan wadankan 10 sanaa jooga aniga iyo walaha bilooyina waa gartay da-daadu waa imisa adoo raalli ah waa 53 waa gartay horey u wado marka waxaan su-aali lahay sheega in arrintaas aan wax ka weydiiyo waxaa intaas dheer meeshaan hoosoo waxaa la yidhaahdaa ii sheeg labadan xabaysyood xatee oo keliyaha hoostooda way xanuunaysaa keliyaha hoostooda xanuunaysa waa gartay haye marka waxaan dhihi lahay waxau talaa usii lahay maxaa inta haddii dhakhtar haddaan waa joognaa wadan dhakhtar laakiin wax ka qaban maayaan biyocabawgi nafta nooga qaadeen hadda wax oo natiijadana waa kawaa dagaalna waa laigu sameeyey oo iskaaraa la geliyey khadka telefonka ku jira xasan doctore okay xasanow m r i aa samaysa soo maaha ku celi m r i Scan baa ku saaray. scanka dhabarka Scan baa lay saaray, haa. dhabarka muxuu sheegay waa fayowdaa la yidhi waxba ma qabo haa okay waxaan ku weydiiyey vitamin d ga ma laidinka controlaa maxaa waaye vitamin d ga kan qoraxda waa layga kontaroolay waa kugu yaryaha la yidhi waa daawo xumo oo la dhibcinayo in qaada 3 jeer lagu dhibacsado la leefaayaa laysiiyey haye waa wax adigu haddaan saas isaga matin waxaa xanuunayay markaas oo laga qaadayay waxaana laabi karin markaas xusulka wuu ii fiicnaada markaas ha marka hadda dhabarkaa ku xanuunayo ma kuu diran physiotherapy exercise la sameynayo qolooyin qaabilsan loo diraa jiro oo dhabarka baabiisa xanuunkaas physiotherapy lay diray waa laygu sameeyey waxba kuma dheefin haye orod anaa kaligay jim meel la yidhaahda waa ka dira oo xataa majaa ayaa iga bararaayo waxaadna u qabtaa saa meelkaan fadhiyo lugahayga in wax ka socdaanaan moodaaba ha dhiikar maa qabtaa adi maya dhiikar ma qabo maray waxay yidhiin waxbaa jira laakiin ayaanay iguna naqdeen adiga muddo sanada igu mashquulsanaayeen hadda waxba ma jiraana yidhaahin ha marka hadda problemka weli jiro waa dhabarkii a weli ma dhamaan haa sheekadiisa
dhabarka kaliya maahan murqaha garbaha iyo murqaha majilibka waxaa waaye faadka kasoo baxa maxay ahayd mirdiga ilaa faryareyda galaa ay xanuunayo soo mara dhabarko waxaa mara sinaha oo waxaa mara jilibka dhulkaas iyo xidid midmahan oo xidid mariida madoobaadka la yidhaaho sarcaha xaggooda marka ma guurguura xanuunka mise hal mar waa guurguura marma meelo mar sida oof camal ii qabanaa mar waa roonaana adiga wax saas waa haddaan socdana waa u daranto haddaan socaayo waa iska fiicanahay laakiin haddaan socodka dhaafaan aan awada gaaro kala subaxi ka iman karo marka kaniiniyaal ma qaad weligaa ma maqle fibromyalgia xanuun la dhaho wallaahi horta saas waa isaga baqaa laba un masalan aniga raayi ahaantayda haddaan fiiriyey rumadiisi mahaas waa isaga baqaa iyo ma wax quraan raba ama iyo labadaasaan un shaki isaga qabaa quraanna waa isa saara laakiin hadda waa kulley kuma caafimaadin okay ani waxaa ila roon inuu xoogaa I think fibromyalgia murqa guuraayo inuu idinka private ma helaysin inaa u tagtaan dhakhtar private ah dhakhtar private wadankan ma yaal waa in wax daawo walaxaan heli karna waxaa ka jiro bristol iyo wax lamida okay ma waxaa ila roonaan lahayd inuu exaamyaal sameeyo dhiigag laga qaado la fiiriyo fibromyalgia cudur la dhahayaa jiro oo guurguuraayo in vitamin d-giisa si fiican loo saxo mineraalkiisa suu yahay xoogaa yar baarisahan uu ku wanaagsanaan lahaa in la sameeyo waa hagaag xasan waxaan jecelnahay in maaragtay dhakhtarku kuu jawaabay waa kaaga mahad celinaa qeyb qaadashadaada waxaana jecelahay marka xigtoona soo wacdid adigoo ka booday oo caafimaaday inaad insha allahu tacaala nala soo xiriirtid dhakhaatiirtana kaalmayso qur-aankana isku akhri insha allahu tacaala daawo ayuu u yahay ruuxda iyo jirka labadaba waad mahadsan tahay layn kaloo ku xiga halow mahadsantaa khayr allah ku siiyo khad kaloo ku xiga haddaan u gudubno halow waa hagaag doctore waxaad ka hadlaysay daawo raadintiisa daawada marka waxaa jira marka 4 nooc oo kale oo hadba meesha markaas la tago qaar markuu blood pressure ka yahay aad ku qasban tahay waxaa jirto caninian tabletka oo water tablet ay dhahaan waxaa dejinaysaa biyo badanka ayaa ka saaraysaa marka blood pressure-ka uu degaya qaar ka mid ah dhacaana jiro angiotensin dhacaan la soo saaraya kaliya korkooda oo kaliya soo saarayaan kuwaas laftikooda kuwa block ku sameeyo si aysan xididada inta tagaan cariiri aysan u sameynin marka daawooyinka way badan yihiin oo qofka la siin karo wadan walban waxaa u yaala guideline oo la isticmaalayo sidii loo bilaabi lahaa waxay aad baa umahadsan tahay layn kaloo ku xiga halow soo dhowo walaal waxaan ku weydiinayaa blood pressureka waxaan ka weydiinayaa doctorka weydii waxaan weydiinayaa blood pressureka steve murqaha ma leeyahay steveka asaa yaqaano murqahu ku istaaga ma leeyahay murqa adeeg soo ma aha steve muscles sometimes wuu leeyahay hallo walaal ma maqashaa muxuu yiri doctorka hooyo dheere waxay sometimes wuu leeyahay inuu leeyahay muruqa taagmo badanaa asaga special uma aha laakiin waxa oo muruq inuu taagmo ama muruq boodo waxa special u ah waa ku maqlaa doctor waa maqlaaya wada doctor wada marka muruq boodaayo waxyaabaha qaarkood waxa boodaayo lugaha dhana taagmaayo muruqa dhana taagmaayo steve noqonayo iyo gacmaha aqaloocanayaan oo kala tagayaan maya markaas waxaa loo baahan yahay in dhiig la qaado calciumta iyo la fiiriyo iyo cusbooyinka mineraalka qofkan in la baaro u baahan yahay dhakhtar ma u tagtay walaal dhakhtarka wuxuu leeyahay muxuu ku yidhi dhakhtarku annaga nala soco tv-ga iska daa telefonka nagala soco dhakhtarku muxuu ku yidhi arthritis waa yidhi laakiin high blood pressure aan leeyahay laakiin fiiri ma laha high blood pressure inuu boodo muruq boodo ama ka dhahay ma laha dhakhtarka wuxuu yidhi waa kushi gaabi walaalay aan ku ducayno annaga nala soco telefonka nagala soco tv-ga iska daa haddii kale isma maqlayno waa gartay marka wada hadalkaaga marka kaniiniyaalka inaan iska joojiyo haddaan rabo maxaan sameynayaa oo yacni kaniiniga 3 kaniiniyaan qaataa waxaan rabaa inaan iska joojiyo ugu tiro badan yahay marka maxaan sameyn karaa marka kulli dhiikar miya kaniiniyaasha
adaan kula socda cabdi oo walaalo maxaa kugu dhacay walaalay khayr allah ku siiyo isma maqlayno raalli ahow maxaa yeelay taleefonka dhegeysanaysaa waa mahadsantaha walaashay taleefonka qoro dhakhaatiirta adoo la xiriir adna waqtigaa iska qaadaysaa annagana waqtigaa naga qaadaysaa laakiin waxaan kuu rajeynayaa caafimaad ballaaran insha allahu tacaala iyo inaad farxad ku noolaatid waa hagaag layn kaloo ku xiga halo ken halo halow soo dhawo walaal haye waa dhawaabo t v-ga baktiya marka hore haye soo dhawow magacaa fawziya waa gartay fawziya xaggee joogtaa waxaan joogaa london soo dhawow maxaa jeceshaa dhakhtarka inaad weydiisa mawduucan adoo la socda waxaan rabaa inaan weydiiyo hooyadaya waxay qabtaa dhiikar daawooyinaana la siiyey daawooyinka la siiya mar walba waxay hoos u dhigaan cusbadeeda haye waa runta cusbadeeday hoos u dhigaan cusbadeeday hoos u dhigaan dan duqdii dhammeyd waxay noqotay jirkeedii dhan maqaarkeedii dhanaa isbedelay haye marka hadda waxay qaadataa dhiikar hal noocay hadda qaadataa oo 5 milligaraama amilooda bin miya ha okay haye kaasna marka aniyo waxaan xanuunaya dhinac dhan garabka qoorta ilaa madaxa lugta dhan dhinac dhan aan xanuunaya iskaana loo diray waana waxayna leeyihiin waa aad fiican tahay exercise waxaasay leeyihiin iyo neerbo waayo waxa qoos garaynayo waxay u qoreen kiniinkii matag iyo waxbay ka qaaday mar walba ma controlshaan ma dhiigga ma ka cabirtaan haa dhiigga waa ka cabirnaa manatarka waa soo gadanay dhiigga waa ka cabirnaa hal side hadduu hal dhinaca xoogaa problem ka jira maa tiri ha very careful aa laga ahaada inay stroke ku dhaco oo macnaa waa fahmay soo maaha amilodhabinna waxay leedahay lugabarar ay leedahay haddii lugabarar aa ku aragtid kuwa kaadida oo biyaha bixinayey laba nooc oo malaynaya ina kuwaas waa ka joojiseen soo maaha ha kuwaas ka joojiya laakiin waxaa roon in la controlo oo mar walba la jagareeyo at least kaniini kale oo xoogaa xinjiroobida dhiig iyo waxyaabahaas ilaaliya iyo e c g in la saara wadnahana laga fiiriya ayaa ila wanaagsan waa gartay niyahow marka hadda ka horna dhawaan keenay walking clinigiina oo Tottenham haye dhiig gastrigi waxaas ambriyahaas xoogaa dhibaayo waa usoo qorteen neerbara kuwan hadda ma aqaan I don't know inay yaqaaniin in kaleete hooyo waxay aaminsan tahay in uu neerba dhinaca ka haayo ay neerba yahow dhiikar iyo waxba aysan ahayn waa la arki karaa haddii labadaas waa loo kala saari karaa waa la fiirin karaa maadaama markii ugu horeysa gastrita umaade haddii lagaa daaweeya hadda neerfaha xaggiisana waa la fiirin karaa waa keeni kartaa okay waa dhamaatay dan insha allah aad baan kugu mahad celinaa qayb qaadashadaada iyo saa t v-ga isaga baktiisay oonu isku maqalnay waa alla mahadiis adna waa ku mahadsan tahay layn kaloo ku xiga haddaan gudubno halo doctore haddaan dib ugu noqono inta khadkaas aan iska maqlayno dadku waxay ka cabanayaan blood pressure dalkeeni soomaaliya markii la joogay waxaan dadka aada uguma badnaan jirin cudurro badan oo aqoon baa soo baxay haddaay waxaad sheegtay dadkii beeraha faran jiray dhibaato iyo stress badan maysan qabin iyo walwal xoolahooday raacan jireen beertooday ku noolaan jireen maxay tahay waxaan cudurro ah oo imika siyaacayo onan afgaran moor annaga teknolojiyada iyo casriga oo hore usii baxo dhibaatooyinkana way sii badanayaan oo mashaakilka ugu imaanaya hadda xataa way sii badanayaan soomaaliya because hadda same waayo xagga intaba isku mid waayo technolojiyada tirada badan walwalka tirada badan raashinkii oo asagana genetically modified laga dhigay dhibaatada anaga la isgaarsiinayno hub tira badan oo lasoo saaray warshadihii oo aada u tira badan wasaq anaga jawiga aan wasaqaynayno waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay noo keenayaan dhibaatooyin aada u tiro badan bani aadanka asaga la haleynayo dhulka waa gartay xiriir miyaa ka dhexeeya ragga da-dooda 40 sano ay ka weyn tahay iyo dhiikarka markay noqoto taranka iyo awlaadda iyo waxyaalaha lamidka ha aada iyo aad ayuu xiriir weyn ayaa ka dhexeeyo ragga markay 40 ka bataan haddii dhiikar uu jiro inay is ilaaliyaan waayo waxaa dhici karta in uu ku dhaco impotence ama awood dari xagga maxaan ku dhahaa jamaaca inuu imaado laba reason laba sababoodana keenayso kow marka ugu horeyso qofka oo dhikar qaba waxaa la siiyaa maxaan ku dhahaa daawooyinkan sidii gabadha hadda sheegayso cusbada daadinaya oo kale kuwaas waxay keenaan impotence awood dari oo qofka u keenayaan daawooyinka qaar ka mid ah especially laba nooc oo ka mid ah hadduu qaadanayo qofka ragga ah in la controlo waayo because awoodiisa dhulkay tegaysaa
waxaa kaloo jirto xididka xoogga u garaacaya ama adeeg hadduu noqdo oo meeshii arteriosclerosis uu ku dhaco xubintii taranka ee ragga ahaa taas laftirkeeda dhiig si fiican uma galayo marka kaasna dhibaato fara badan u keenaa marka xiriir weyn ayaa ka dhexeeyo haddii uu maxaan ku dhahaa uu dhigkar qabo waa tan labaad oo imaanaysa mashaakilka xagga ragnimadan dhibaato weyn u imaanayo hagaag wax badan bay raggu iska caawin karaan laakiin arrintaas cid kaa caawin karton ilaahayna ma jirto dhakhaatiirta u tag ha ka xishoonin ha ka baqanin gabdhuhuna inay ku dhiirageliyaan raggooda ayagoo niyadda ka jebinin oo aan si xun ola hadlinin muhiim gaar ayay arrintaasu leedahay hala ixtiraama hala is ixtiraama insha allah waa hagaag khadadka telefonada asalaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullah aad baan kuusoo dhaweynaya walaalo magaca cali aa la yihahdaa walaalo cali xaggee joogtaa cami muqdisho israacsa suusa kaaga goyn maadaama meel foga naga soo wacaysid soo dhawow aada umahadsantihiin doctoorka waxaan weydiin lahaa waxaan qabaa sokor marka caga kuleyl ayaan iska maareyn waayey kaniini oo capsol weeg ayaa hadda ka hor laysiiyey oo layidhi isticmaal waan isticmaalay wax badanna waa iga bedeli waayey kabacdina waa iska joojiyey caga kuleylkaasaa aada u jira waxaanan isticmaalaa kaniini sokor oo isaga nafsikiisa ziyaada ugu ah isagana waxaan u baahnaa lahaa maalintii waxaan qaataa 2 xabo oo 500 oo garaamo ah 1000 habeenkiina 1000 qaataa subaxina 1000 qaataa kaniini kaleeto oo 500 miligaraamana waan ku daraa oo asna sokorta ah habeenkii aan ku daraa marka kuleylkaas see isaga maareeyaa kaniinigaas hadda badan ee aan qaato muxuu u gudbi karaa hadhowti fiiri waxaan ku weydiiyey dhiikar maa jiro dhiikar wuu jiraa laakiin dhiikarka aada u yar yahay maadaama sokorta aan intaa badan aan qaato ayay daawo muu qaatay dhiikarka ma aho waan qaataa 500 waxaan qaataa 5 miligram aan qaataa subaxdii oo dhiikarka xaggiisa okay laakiin dhiigu ma kaco okay kaniiniga oo taa ay capsulaha oo ku siiyeen ma neurobion miya oo ay u qaado ku dheheen kaasoo ahaa laakiin markii isbedel badan aan ka waayo waa iska joojiyay waa isaga dhan waa neurobion aa qaadatay wuu shaqayn waaye okay fiiri laba shay oo lagu kuleel keena ayaa qabtaa maxaan ku dhahaa dhiikarka lagu kuleel u keenaa tan labaadna maxaan ku dhahaa markuu oo qofka sokor qabo waxaa aada hoos u dhaca vitaminada B12 iyo hoos u dhaco ayagana lagu karkara keenaa ama lagu olol ayay keenayaan marka waxaan kugula talin lahaa B complex kaniini la dhahayo oo kale oo B8 vitamino B yaasha ah ina aad si continue u qaadatid blood pressure-kana aad controlshid sokortaadana hadda okay miya sokorta normal waaye marmar waxay gaartaa markii waxay gaartaa 150 160 ayay gaartaa oo waxay gaartaa dhinaca kale marka loo xisaabiyo 8 iyo tan kalena 3 sano hadduu qofka qabo oo metformin sooma kaniini 500 qaadanaysa metformin hadduu qofka qaato more than 3 sano qaadanayay vitaminada B12 ka hoos u ridaa that is why wuxuu keenayaa maxaan ku dhahaa isha kababin uu ku keenaa lagu horna uu ku keenaa marka waxaan ku dhihi lahaa qaado vitamin B complex oo kale ama neurobionka laftirkiisa adiga wax yar ha qaadanine at least 3 months oo kale qaado vitamin B ga waan qaataa B complex B complex aan ku dhahay ma fahantay marka blood pressure-kana wuu keenaan ku dhahay lagu kurkaas vitaminada oo yaraadana wuu keenaa waxaan ku dhahay metforminka wuxuu keenaa yaraasha oo yaraanaya B12 ka qofka bini'aadamka jirkiisa inuu ku yaraado oo la dhuuqo saas daraadeed qaadaan ku dhahay vitamin B12 qaado ama asoo B complex ah isku wada jira qaado si aad u roonaatid for more xoogaa bil ama 2 bilood ama 3 bilood xataa qofku uu qaadan karaa B complexkan qaataa xabadaan qaataa subaxdii qaataa xabad okay waa inaa wadaa blood pressure-kana aad controlshaa waa kuu sheegay waxaan ku dhahay 2 reason waaye waxa ololka keenayo blood pressure-ka oo controlneen oo ka sareeya adiga aanan fahmaynin iyo sokor maxaan ku dhahaa B complex vitaminada oo hoos u dhaco labadaas la dagaalan way roonaanaysaa
aada mahadsan madan cali oo naga soo wacaya caasimadda qaranka soomaaliyeed aad baa umahadsan tahay qayb qaadashadaada barnaamijkan allah ku caafiyo waa mahadsan tahay khad kaloo ku xiga halow 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 qof baa ku jira halow waa hagaag doctore waxaan wadi xiriirka dhexeeyey qofkaan fursadsiina halow السلام عليكم. salaam waraxmatullah soo dhawo walaal magacaa magacaygu waa farsoon adi iyo dhakhtarka aada umahadsantihiin waan kusoo dhaweynaynaa waxaa su-aala raba inaan weydiiyo aabahay ayaa qaba dhiikarka kor yaro hadal fadlan kor yaro hadal aabahay haye aabaha dhiikarka qabo haye saameyn badan oo u geystay walaalay Hadal. israacso dibnaha u dhawee telefonka okay dhakhtarka waxaan weydiinayaa aabaha dhiikarka qabo dhibaatooyin badan ayuu kala kulmay inuu cagaha bararaan inuu afka waxyar saameeyo afkiisa waxyar afqalooco kale u sameeyo inuu korka uro inuu zaa'id u dhidido soomaali ayuu joogaa hadda dhow waxaa kusoo Wado- maxaa kusoo kordhay hadda dhow hadda dhow waxaa kusoo koray inay dhegta waxba uusan ka maqlin oo dhegta dhan gadaal madaxa gadaashiisa dhan waxba uu ka dareemin waa imise jirna aabba sokor ma qaadhe aaba wuxuu jiraa hadda 49 waa nin dhallinyaraa waaye sonkor miyuu qabaa macaan miyuu leeyahay macaan ma laha cudurka dhiikarka keliya uu qabaa stroke maa ku dhacay afka shalal qalocday tiri shalal stroke haa dhakhtar stroke maa ku dhacay kartaroolka hadda kasoo sheegeen markii oo dhegta oo saameynta ay keentay markaas ay kasoo sheegeen ha ayaa ugu jiraa maho wuu dhacay ha okay kaasaa dhibaatada dhan keenayso ha la controlo waxaa jira kaniiniyaal la siinayo oo looga hortegayo maxaan ku dhaha suusan marad kale ugu dhicin wadnihiisna hala jagareeyo oo e c g waxa la saaro hala control arrhythmia waxaas inuu qabo si uusan xinjiroobid u sameynin inuu baxin oo haddana mar labaad ugu sameynin stroga laba nooc u kala baxaya midna dhiig kara keenaya dhiig meesha maskaxda ku furmo midna waxaa keenaya xinjiroobid dhiiga ka baxa wadnaha ama lugaha kasoo baxa oo maskaxda taga ayaa keenaya marka laba nooc oo waxaa jirto oo stroga kan aad u badan waa kan oo xinjiroobida ah kan kale oo dhiiga furmaya ayaa yar markasaysan u dhicin wadnihiis inuusan arrhythmia waxaa la dhahaa inuusan wadnaha sidii loogu talagalay uma garaacayo ha laga ilaaliyo la jeegareeyo irregular beating jiraayo kaas in la ilaaliyo iyo maxaan ku dhahaa in stroke laftirkiisa maxaan ku dhahaa blood pressure laftirkiisa cabiraadiisa hoos suusan u noqon strokegii labaad oo ah xidid inuu qarxo waxagaan si fiican baa u maqashaa malena walaalay haa waa maqle waxaa kaloo rajeynaa dhakhtarka magaciisa saddexaan inaa dhakhtarka intaa kala xiriiro waxaa ilaabay soomaaliya xaggee joogtaa adigu ani waxaa joogaa london waa hagaag xayisiinta dhakhaatiirtan soo daynaynaa teleefonkooda ka qora insha allah haya waa mahadsantihiin aad baan kugu rajeey khayr ugu rajeynaa aabaha insha allah waa hagaag khadka kaloo ku xiga halow 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 doctor nowad arrintan waxaa kaloo jiro cabdixaafid dad qaba waxa la dhaho hypertension oo malayn oo khatar ah crisisa ku dhacay dadkaas sember waa la ilaaliyaa xataa haween ha noqdaan wax ha noqdaan kuwaas jamaaca waa laga ilaaliyaa haddii blood pressurekooda controolka uu ka baxay oo mashaakil aada u weyn ah haweeney ha noqoto waxa ahaato waxaa aada looga ilaaliyaa in exercise oo dhan ana laga ilaalinaya ayaa jiro marka waa case oo raara ah yar laakiin dad aada loo ilaaliya ayaa jiraan kuwa raggan oo afartameyada dhaafa dhiigkarka qaba laakiin waa la daaweyn karaa waana laga hortegi karaa tan kaloo dadka sokorta qaba waxaa ku dhaca arteriosclerosis xididada dhexdooda ayaa waxa ku samaysmaya dufanka dadka cholesterolka qabana very dangerous waaye ayagana wuu imaanayaa awood darida ragga waxyaabo fara badan kale ayaa keenta ma fahantay maxaan ku dhahaa oo maxaan ku dhahaa oo raacsan waxaan rabaa inaan ku weydiiyey su-aal inkastoo rabaa teleefon ka hormariyo su-aashaas waxaa weeye haddii raggii markii dhiigkarkii uu ku dhaco ay dhibaatadaas ay ku dhacayso aad kasoo sheekeysay dumarku ma lamid baa mise ma ahan hal telefoon kaa hormarinaya halow
السلام عليكم. salaam raxmatullah soo dhawo walaal magacaa محمد عبد يوسف. maxamed oo soo dhaweyna xaggee joogtaa محمد. soo dhawo warkaaga israacsan meel fog baad joogtaa khayr allah ku siiyo أنا لو كلنا أسكار كهذيك. marka dhaqtarka uu dilaa maxaa sababa adinkana adinka badan arkaa maxaa qabtaa wax dhiikar sokor waxaa qabta ma jira caafimaadkaaga ilaa hadda maya waxaan isku ogahay meeqa jiraa tahay waxaan ahay tuugambis maxaa ya konton waay konton iyo shan fiiri cunitaankaaga cabitaankaaga okaymiya iyo biyaha haddaan maxaa la yidhaahdaa biyaha caadiga haddaan cabo oo haddaan hal galaas cabo musushan aada haddaan laakiin biyo orange ama liin dadka haddaan aan 2 litir cabo mas'uul aadi maayo okay marka hadda waxa ugu daran ku haya caga olol miya agaa ku horay dhabarkan waa xanuunaa back pain new vitaminaadkaaga wax multivitamin wax ma qaadatay ya vitaminaad weli ma isticmaashay ma ku tijaabisay maya wax aan qaato mal wax kaliya aan qaato mal aniga waxaan ku dhihi lahaa adii 15 beri oo kale vitaminaad isticmaal ama bil xataa multivitamin waxa la dhahayaa jiro midka marka multivitamin waa gar isticmaal ilaa 15 maalmood oo kale tijaabi ama hal bil insha Allah waa ma aad baa mahadsantahay ka qayb qaadashada barnaamijkan waxaan u gudbaynaa line kalan ku xiga si toos ah hallo hagaag doctor wado waxa ay weydiisay haddii haweenku uu ku dhaco waxaa tiri raggii haddii dhiikar uu ku dhaco la daaweynin laga gaarin inkastoo daawada dib uga imaan doono insha allah waxyaalaha ku dhaca waxaa kamid a inay xubintooda taranku siday rabtay ay ugu shaqeyn waayeen haddii dumarka uu ku dhaco ayaga xaaladooda hoose xafid haweenka ayaga maxaan ku dhahaa ragga sidooda oo kale maaha organada xubinka waa kala duwannahay dhibaatada ragga u imaanaysa uma imaanaysa ayaga hal shay oo aada u imaan karo oo ayaga uguma waxa waaye maxaan ku dhahaa waktiga uu jamaaca socdo haddii uu dhiigkar uu ku kaco ama daawadooda ay control ay lahayn madax xanuunkaas ay qaadayso ayaa psychological laga yaaba inay ninka diido may fahanta marka mar alla markii waxaan ay samayso hadduu uu yahay kii xuma aan ku dhahay darajada saddexaad oo kale ku dhahay halka ku joojiyo qof meel fog soo wacayo laba jeer ku jira la yiri hal mar idul qaado xal qaado hallo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحفيظ هذا بوصل ولا اوكي سودو ساتاي وفرحنا الدكتور كينا اسمه قلنا عاو لايف ما شاء الله كميد dadki Italy soo deganayeen marka waan ku faraxsanahay gabar oo isku galaas ahayn inay soo shaqeeyaan private ma sha Allah Chamber Bush ku taal doctorka waxaan weydiin lahaa waxaan isticmaalaa daawada oo high pressure ka amlodipine 5 milligram hal xabo maalintii marka marmar ma isticmaalo adiga daawooyinka badan waxaan diidaa keliyaha ayuu dadka wax ka haleeyaa marka taas macnaha masaruwi kasta taas inay dhacdo keliyaha inay wax ku gaaraana adi waxaa samaynaysaa every year ama every 6 months waxaa samaynaysaa kelida check-ina samaynaya kidney function dhiiga iska qaadee waa tijaabinaysaa dowladda UK amlodipine ay ka bilowda waa first line daawada ugu khafiifsan oo dhibaatadeedu yar tahay ay dowladda ku bilowda oo ma fahantay munaasib ah marka saas daraadeed amlodipine hal shay ku xuntaa waxa waaye luga barar ay leedahay markuu qofka wax muddo badan uu qaato laakiin keliyaha qofka waxaa ku filan in sanadkiiba hal mar uu iska jeegareeyo uu ogaanaya xaaladda meel ay marayso haddii isaga dhiban waa laga bedeli karaa marka dhiiga daraada aan iska soo qaaday marka jawaabtaan sugayaa ma aqaan doctorka wuxuu dhahay inaad joojisid maahay dhiigaadii meeshii la rabay weliba hoos ma kasoo deganin weli sidiisii waaye uu dhahay markaan waxaan dhahay marmar waa isticmaalna marna ma isticmaalo marka waxaan isticmaalaa sida tuunka iyo jinjerka iyo adiga aloe vera iyo waxaas aan isticmaalo oo waa kugu raacsanayay daawo Soomaali daawo Carabiga isticmaal laakiin ha joojinin amlodipine-kaaga ilaa aad ka heshid kaniini kale oo rasmi ah adiga haduu ku dhibayo ha ka waswasin inuu kaliya ka beeliyo dhibaatada imaanayso ayaa ka weyn haddii aad joojiso blood pressure-ka cirka galo stroke yar oo kugu dhaca ayaa noloshaada dhan aad ku baabi'i kartaa berkuy ha dhaafin kaniiniga marka madax xanuun waxaas ma leeyahay
marmaraa madaxa xanuun maadaama dareewal aan ahay madax xanuunka waxaa keenaya dhiig karkaa keenaya waa kase asaga inuu kaa dejiyo waayo markaasoo kale barastamool la qaadanaya laakiin kaniinigaaga ha ka boodin aad iyo aad waa mahadsantaha allah ku caafiyo aamin aamin thank you hagaag khad kaloo ku xiga halo halo assalaamu calaykum soo dhow walaal وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maxaad jeceshaa dhakhtarka inaad weydiiso walaal ها waxaan weydiin lahaa hooyada muxuu ahaa lugaha ay ka barbarsan tahay marka waxa bararkaas keenayo hooyo marka ma kula joogtaa iminka may mila joogto gurigay joogtaa daawo ma u socoto marka naqaskana waa ku xirmaa marmarna neeftii ku xirmayso daawo ma u socoto hooyo daawo waxay qaadataa dhiikaray qabtaa haye hal daawo badan iyo tyrodna waa lagu soo sheegay way qaadataa okay inta labadaas kaliya qaadataa laba kaniini lugaha ma barara marka lugayaa bararsan marka bararkaas maxaa keenaya kaniiniga magaciisa ma taqaan dhiikarka mayo wala hadda lama joogo ma aqaan okay hadda saan sheegaya kaniiniyaasha qaar ka mid ah sida hadda kii hadaaya laga hadlaya amilodabin oo kale luga barar uu leeyahay caadi ahaan maxaan ku dhahaa in ay qaadato tyrodka laftirkiisana wuxuu ku wanaagsan yahay in 6 bilood ama sanadkii la saxo oo la fiiriyo meel uu maraayo inta microgram ay qaadanayso iyo tyrodka levelka dhicaanka uu maraayo dhiigana la jeegareeyo ma fahantay dhiig karka laftirkiisana la fiiriyo keliyaheedana la fiiriyo kilaa laftirku hadday wax gaaraan waxaa bararaayo maxaan ku dhaha luga barar waa imaanaya lugaha aday u bararsan yihiin ha waa imaanayaan luga barar marka keliyahana hala jeegareeyo tyrod kaniinigiisa iyo dhicaankiisana ha laga qaado hala fiiriyo asagana hala jeegarayo kaniiniga oo loo qaato dhiigkarka laftirkiisana qaar ka mid ah sida amilodabin ayagan laftirkoodana way keenaan wax badan barar keenaa wax badanaa keenaya marka check-in ha lagu sameeyo intay joogtaa hooyo london ay joogtaa waa la arki karaa haddii aad jeceshahay waa mahadsan tahay allah ku caafiyo hooyada khayr allah ku siiya waa mahadsan tahay qayb qaadashadeena daawadayaal weli waxaanu gudaha kaga jirnaa barnaamijka late night show aanu ugu talagalnay labadii isbuuc oo mar dhakhaatiirta walking clinic ay halkan soo fadhiisaan ummadda soomaaliyeedna wixii su-aalaha mawduuca habeenkaas aanu ka hadlayno ay fooda daraan shaashadda waxaa idinkaga muuqda labada xarun ay leeyihiin ee waqooyiga magaalada london iyo weliba galbeedka waa xaafadda tottenham iyo xaafadda shabed bush waa hagaag doctor intaan khadadka teleefanada u gelinin ragga soomaaliyed in cadaalad u sameyno waa daruuri rag badan oo maanta ragga la jirtaa anaga dhan ma wada rag waxaa laga yaabaa inay rag badan leeyihiin sheekadiina ma rabnee daawada noo sheega aan cabil baxnay soo dhow waxyaabaha lagu daaweeya haddii qofka ragga uu la kulmo dhibaatooyinkan oo kale waxaa aada u wanaagsan horta in si fiican loo controlo blood pressureka dhibaatada keenay oo si darita oo keenaya oo xididadii dhaawaci waxyaaba gaarsiinaya tan labaadna ragga in laga bedelo daawooyinka keenayo sida kuwa watarka maaragta oo biyaha ka bixiya milixda bixiya kuwaas laftirkooda in laga joojiyo oo laga bedelo sisan dhibaatadaas ay ugu dhicin marka labada dhinacba waa toosi kartaa iyo in mineralskooda nutritionkooda waxooda aa kor usoo qaadid haddii uu awood waxyaaba zaa'id oo noqon waayana kaniiniyaashan buluuga oo soo baxayna in lagu caawiyo hagaag daawadayaal waa maqlaysaan khadadka teleefon haddaan dib ugu noqono hallo 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 may maqashaa halo walaal soo dhowo walaal waa soo dhowo aad baad mahadsantihiin magacaa walaal xageesi joogtaa london baan walaal joogaa magacayga faaduma walaal loo dhahaa haye faadum soo dhowo ha dhakhtarka waxaan weydiin lahaa walaalo dhiigkar sonkor corostrol tyron intaba waa qabaa waa gartay marka walaalo dawadoodana waa wada qaataa waxaan marka dhakhtarka weydiin lahaa dhuunta ay xanuunaysa dhuunta habeenka markaan seexdo baa muxuu ahayso dhuunta waxaa iga dhaca markaan seexdan qufacahaya habeenkii anoo hurda maalintii ma qufaco habeenkii o dhan marka marmar baan dhaha nafta amay kaa baxdaa marka bal dhakhtarka ay weydiiyey walaal waxaan ku weydiinaa weligaa ma lagu sheegay gastrita gas boga xanuunaya ama discomfort caloosha ah ama dibiriyo waxaas ma qabtaa ama laabjeex hallo hallo ha faadumo ma maqasha dhakhtarka wuxuu ku weydiiyey haye faadumo may okay t v-ga iska baktiya marka hore walaal adoo mahadsan
haye tv-ga annaga nala soco fiiri waxaan ku dhahay weligaa ma lagugu sheega bog xanuun caloosha ma ku buurtaa ma dabartaa ma laab jeexdaa cuntada ma ku dhibtaa maya waxaasoo dhan weligaa maadan la kulmin weligay maana arag okay waxaa jiro laba habba way ku imaan kartaa qunfacan oo habeenkii ah qofka marka lie down uu sameeyo wuxuu jirta hernia taale ama meeshan oo furan caloosha acidity oo soo noqonayso waxay keenaysaa xadxatasho iyo dhibaato keena markaasuu qofka qunfac galaya dadkaas oo kale barkintan inay dheereeyaan kaniiniga oo isha gaaskana la siiyo aashidada hoos loo dejiyo waqti fiicanna ay casheeyaan kaasna way keeni kartaa dad ayaa allergiya u jirto ayagana taasna gooni waaye labadu in loo kala saaro ayaa aada u wanaagsanaan lahayd probably dad badan ayaan ogeyn in oo jiro noocaas reflection oo acidkii oo soo noqday oo ahaa ayaa jiraan marka dadkaasay aada ugu badan tahay oo habeenkii la u imaadaa ma fahamte meesha xoogaa u sahlan inay acidku soo noqdo laakiin hadaladeeda waxa ku jira waxay tiri mararka qaarkood naqaska igu dhow waxaan ka baqaa inuu qofka dhimanayo ku cabsanaa ha saas waaye neefta kugu dhegeysa adiga dhan ma dhiman rabtaa because acid fara badana soo gaaray halkaas kaasayna u badan tahay ba faadimo waxaan umaleeyaa dhakhtarka inuu kuu jawaabay haddaad u baahan tahay inaad baaritaan lagu sameeyo ama dhakhaatiirta la sheekeysatid shaashada ayuu numberkii kugu yaala waa hagaag khad kaloo ku xiga halo ahlan wasahlan wal soo dhowo fadlan kor u yara hadal adoo mahadsan waan ku salaamaday dhaktarka waan salaam aad baan kuusoo dhaweynaynaa soo dhowo waxaan rabay inaan weydiiyo doctorka waxaan rabay inaan weydiiyo dawo dhiikar hadda kahor lagu sheegay marka dawadii marka dawadaas isaqrama dawada marka hore waxaan sheegtay migraine inuu ihaayo waa gar marka anaa migraine sheegtay daawo qoreen marka dhiigayga la cabiriyo waxay guraan marka dawadaas qaado marka dawadii migraine way leeyihiin dhiikarna way leeyihiin marka dawadii magaceedaan rabaa inaan afar afshir u sheego hadduu fahmi karo labadaba u roon tahay okay dawadii magaceeda propranolol propranolol meeqa miligram 10 miya propranolol waa 10 miligram 10 ma aha waa garanaya waa runtood propranolol waa lagu dejiyaa dhiigkarkana waa lagu dejiyaa migraine-kana way baabi'isaa dadka oo qabo maxaan ku dhahaa wadnaha accelerate aad u garaacayana waa lagu joojiyaa waa la siiyaa waa lagu dejiyaa hadda waa fiicanahay 120 markasoo iska cabiraba maya 10 miligram wax weyn ma qabanayso waxa aada ugu daran hadda lagu siinayo waa migraine-ka madax xanuunka aada ugu roon tahay marka haddaan migraine ahayn iska dhaafi karaa inaa cuno waa dhaafi kartaa haddii migraine aan ku hayn waa joojin kartaa bas waxa kaloo ku weydiinaya cholesterol ay ugu sheegen cholesterolkaygana waa 6 iyo waxaa la yidhi 6 iyo baru maraaya haye ma qaadataa marka atrostatin simvastatin atrostatin la iisoo qoray oo 20 miligram 40 miligram haye ma qaadataa waa cuna maalinta seewa kaas habeenkii maya intuu xoogaa 5 ka tagaayo ama kasii hoos marayo qaado maalintiina waa qaadan kartaa habeenkiina waa qaadan kartaa markaad seexanayso adaa mudan thank you line kaloo ku xiga haddaan gudubna halow salaamu calaykum cabdixaafid salaam waraxmatullah soo dhow walaal waa dhowahaye daktarka waxaan rabay inaan weydiiyo hiatus hernia ya hiatus hernia wax la dhaho maxaa la dhahaa hiatus hernia hiatus hernia hiatus hernia hiatus hernia waay caloosha kor u baxaysa haye taasaan raba daktarka inaan weydiiyo hiatus mina ogaatay macnaheeda maya cudurkaas muxuu yahayba okay waxaa jirto dhuunta tubo ka baxdo esophaga la dhahayo waxay tagtaa caloosha xabadkay dhex martaa calooshay tagtaa caloosha iyo maxaan ku dhahaa tubadaas esophagaha waxaa u dhexeeya sphintere meel oo qabsamayso aashitada caloosha saysan kor ugu soo noqon wuu xirmayaa markay cuntada kor ka imaado ee dhex gasha caloosha wuu xirmayaa hiatus hernia marka waxaa jirto meesha ay ku taalla sphinteeraha ayaa positionka wuxuu soo gelayaa koruu soo aadaa ama wuu furan yahay wuxuu u fududaynaa acidkii caloosha inuu kor soo aado ayuu u fududaynayaa badanaa waxaa lagu daaweeyaa hadduu level 3 dhaafo qaliin waaye ninsan aa la dhahaa operation aada u fudud yahay waa la xirayaa caloosha inta lasoo qaada lagu wareejinaa caloosha laftirkeeda 2 pointa lagu xirayaa very sahal waaye
aada u xanuunsan iyo fikradaasaan layga sheegay. okay ma lagu qalayaa mise way ku siiyaan kaniiniyaasha acidka kaniiniyaalan qaataa. okay wax qalin ama lagu sheegin may hata grade-ka uu marayo ma lagu sheegay tubada ma la gelgeliyey maya waxba iima sheegin. warqad ma ku siiyaan markii tuba la geliyo warqadaa la qoraa oo qofka la siiya ama gb-ga loo diraa warqad waa adiga waxay dhaheen cuntooyinkaasi waxaasi ma qaadan kartid haytitenia laga helay tubad markii la geli maya marka istiil xanuun ay ahaay. okay yatis herni markii la helaayo soo tubo ma ahayn waxay ku heleen ay ku geliyeen camerada la geli marka way qorayaan rabor wax la dhahayo qorayaan levelka ay maraysa ayay kuu sheegayaan marka acid room waaye inaa is ilaalisid waaye acidkaas inuu isugu dilid oo wax dhibaato kuu keenin waa in kaniiniga acidka yar ay qaadatid haddii levelkan ku dhahay uu weyn yahay qaliin waaye waa qaliin waa hagaag aada u mahadsan tahay waa hagaag fursadaan siino qof iyo laba kale insha allah halow doctore marka waxaan dhahaynay haddii oo haweenka uu ku dhaco laba shay buu u keeni karaa madax xanuunkaas tirada badan haddaysan controlayn in ayada laftirkeeda ay macnaha ka caajisto ayaa u keeni karaa laakiin daawada ragga waan sheegnay waxaan ku dhahay ko blood pressureka in si fiican loo jeegareeyo oo la soco tan labaad inaad ka joojisid kaniiniyaasha oo dhibka keenaya labada iyaga aysan ogeyn inaad kaniiniyaasha ka dhaaftid oo kaniiniyaal kale aad siisid ayaa aada u ah haddii zaa'id waxay noqdaanna in daawooyin caadi ah oo caawinaya la siiyo vitaminaadkoodan la ilaaliyo dhakhtarna inay tagaan aysan ka baqanin kana xishoonin gabadha dhiirigeliso aada iyo aad haweenka waa muhiim wada shaqeeya ayna wada shaqeeya guryona ha dhismaan layn kaloo ku xiga halow asalaamu calaykum salaam waraxmatullah soo dhow walaal magaca magacaygu uma axmed waay oo bristol ka soo hadlaysa waa idin salaama cabdixafid adii daktar waa kaa qaadnay walaal maxaa jeceshaa dhakhtarka weydiiseen waxaan rabay inaan dhakhtarka weydiiyo waxaan qabaa sokor iyo dhiikar marka dhiikarka daawadiisa markaan iska cabiro dhiiga marmar 80 hoos kor 110 marka inta badi 120 iyo 30 marka markasta markuu low yahay xataa waxay u dhaheen dhakhaatiirta ma joojin karto daawadii qaado marka anoo dhiigayga hay ahayn maan daawada iska qaadan karaa teeda kalena dhakhtarka waxaan weydiin lahaa waxaan qaataa daawo badan metformina waxaan qaataa 4 xabo subaxdii oo 2 iyo habeenkii oo 2 iyo glucoside waa qaataa subaxdii 1 xabo waxaan qaataa omeprazole waxaan qaataa aspirin iyo sandoz oo 1 iyo 1 ah waxaan qaataa kaniini dhiikarka oo 5 mg oo rambril ah marka intaasoo daawo kii kolestaroolkaan qaataa marka at least adi ugu yaraan maalintii 10 xabo kaniini inaan qaataa iyo qoran marka daawooyinkaas tirada badan ma laga yaabaa yacni inaa aniga xibnaheyga laydka wadnaheyga beerkeyga keliyaheyga ay dhibaato i gaarsiiyaan intaas okay aada mahadsantahay doctor halkaas ii kaadi walaalay adiguna waa mahadsan tahay layn kaloo ku xigan qaadana dawladna isku jawaab korsoftiyaan eriyana aada mahadsantahay walaashay layn kaloo ku xiga halow walaalkay soo dhawow waa dhawaha abo waa maxay su-aashaa qabto walaal abo waxaan rabay dhakhtarka cabdi xaafi adiga doctor abshirba waa idin salaama aad baa kusoo dhaweyn waa kaa qaadna walaal waxaan rabay hooyada lankiskeeda dhinaca left sideka dhakhtarka wuxuu ku dhahay dhinacaas dhan ma shaqeynaa wuu daldaloolaa wax badan ay asma qabtay waa gartay wadankii intii la joogay cidna ma daaweyn jirin waa la iska yar gugubi jiray marka halkan markii iskaankii wixii la saaray waxaa la yidhi waxay haysataa lankiska haafka dhana wuxuu noqdo sidii filter camal oo kale left sidekeeda okay wax inhayladaas iyo ma ogiyo wax kaloo caawiyana ma siiyaan marka wax la daaweyn kara ma tahay intay joogtaa hooyo waxay joogtaa London okay marka da-dee jirtaa adiga 74 hadda way gashay fiiri okay waa hagaag marka basmiya walaalay mise weli waxaa ku dhiman macluumaad cabdixafiido waxaa ii dhiman jiradan oo la dhaho bahalka calool xanuunka helicobacter bacteriada la dhahayo dawo ma leedahay wax micnaha caawiya ma jirtaa very good aada u mahadsan tahay khayr allah ku siiyo gabadhan ka horreysay marka hore bristol
ها gabadhii waxay tiri waxaan qaadanayaa kaniiniyaal badan tan kan tan hor su'aasha koowaad weydiis waxa waaye kaniiniga dhiig karka ayadoo dhiig leeyahay xataa qaadaa lagu yiraahdo joojinin marka waxa waaye ramibril kaniiniga la dhahayo looma siin kaliya dhiig kar waxa loo sii kaliyaha la ilaalinayaa taas waa loo dhahayaa joojinin kaliyaha ilaalinaynaa maadaama daawo badan ay qaadato the other thing is maadaama cholesterol uu jiro sokor ay jirto halista ay badan tahay ayaa hadda la ilaalinayaa control ku socda tan kalena daawooyinkan tirada badan ay qaadanayso kolley laguma fiirsanayo every 6 months ama every year waa la jagaraynaya beerkeeda kaliyaheeda waxooda dhan waa la jagaraynaya marka cholesterol hadduu kaco waa taqaanaa wadnuhu hadhow fadhiisanaa xididadii wadnuhu xiraaya way u dhiman kartaa dhibaatay keeni kartaa dhibiil halay kara wuxuu halayn karaya omeprazole waxa loo siinaa caloosheeda in la difaaciyo maadaama intaan daawo ay qaadanayso bogaas xanuunaya metformin waa kaniiniga sokorta loogu talagalay inuu sokorta dejiyo oo normal ah haddii sokorta okay noqoto qofka sida normal u noolaanaya marka taas waaye daawooyinkaas ka qaadato laakiin aad dhiigana ha lagaa qaado hala jeegareeyo geerida beena gabadhan hooyadeeda waxaa ku dhacay asma oo kusii socday ilaa iyo hal dhinac ayaa sanbabkii qayb dhan oo kor ayaa waxay noqotay way baaba'day normally waxaa la sameeyaa markii ay noocaas oo kale noqoto Italy marka waa la bixiyaa qaybtaas waa laga saaraa way jaraan hadiiba ay hanasaysan qaybaha kala dhan aysan wax u gaarin waa la bixiyaa oo waa la saari karaa haddii kalena waxay hadhow noqonaysaa in oxygen iyo lagu rakabo inuusan accelerated oo noqon uusan meelaha uusan ku faafin waxa keena ay ku xiran tahay maxaa keena waaye TB way keeni kartaa asmada laftirkeeda oo baaba'da fibrosis ku dhici kara atelectasis waxyaabo badan sanbabka laftirkiisa ku dhici kara marka wixii keena ay ku xiran tahay haddii waxyaabo qaarkood ay keeneen in laga bixiyo qaybtaas qaybaha hal qayb kaliya waa shaqayn kartaa ku filan tahay iyo qayb yar loo reebaa qaybta hoos kan kor la saaraya dibanda labada dhinac kee ku dhacdo sanbabka kan midig ah 3 qayb uu leeyahay kan bidixna ah 2 qayb uu leeyahay hal qayb waxa ku fadhiyo wadnaha waa gartay tan kale helicobacter ay tiri ma la daaweyn karaa helicobacter aad loo daaweyn karaa 3 daawo leeyahay dhowr mar aan ka hadalnay waana laga daaweyn karaa waa gartay aad iyo aad ma santay doctor waxaan joognaa gabagabadii gunaanadkii maxaad kula talinaysaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa waxay dhahaan wixii aqarsatay way ku qarsadaan marka dadka dhiig karka qabo dadka sokorta qabo aad ha isu kontroolaan ha jeegareeyaan dada ka cabsada xataa mashiinka wuxuu ii sheegayaa waa waalaya ku leeyahay waa ka cararaya in uu face gareeyo oo macnaha oo afrontaareeyo wixii uu qabto uu dadaalo ayaan kula talin lahaa yaan ka jeesanin indhaha ka dadban wixii ka hortag waxa qaban kartid qabo intay wuxuu yar yihiin wixii intay yar yihiin haddii hadhow faraha ka baxaan adiga iskeena dhibaatooyinkaas tirada badan dhiig karkana complicationkiisa aad u badan yahay keliyuhu beelin karaa wadnuhu beelin karaa stroke ku ridi karaa ragnimadoodu baabi'inaya intuu waxaas oo dhan kuu keenin asaga ka hortag doctor aad iyo aad mahadsantahay adiga dhakhaatiirta walking clinic ba oo ku mahadsantihiin daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waxaan idin rajeynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu caafimaadna wada siiyo kulligeen kuwana caafimaad qaban ilaahay uu u zaa'idiyey insha allahu tacaala intaa kadib waxaan kaga mahad celinaynaa si xagar la-aana ka qayb qaadashadiina iyo daawashadiina iyo weliba inaad noo soo qortaan fikradihiina iyo mawduucyada aad rabtaan inuu barnaamijkan uu fooda daro si kastoo ay xasaasi u yihiin mararka qaarkood mawduucyaa noo soo qortaan laakiin waxaa laga yaabaa inaan horey uga soo hadalnay oo kuwo kalaan qaadano ha u malaynina inaan markaa idinka aanan idin inkarayno amase aanan idin tixgelinaynin qof kasta oo nala soo xiriira waa tixgelinaynaa a.xafid@tvuniversal.net amase tvga universal tag meel waxaad arkaysaan contact ku qoran tahay nala soo xiriir halkaas waxaa kusoo qortaa ujeedadaada iyo waxaaga dabeedna aanay iisoo gudbinayaan barnaamijka waxaa farsameynayey maxamed biibaaye oo si hagar la-aan noola shaqeeyey waxaan kaloo u mahad celinayaa axmed daahir afaaro oo nagala qayb qaatay barnaamijkan late night show waxaa idiin soo saaray anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac isla mar ahaantaana idinla socodsiiyo intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono isbuucyada soo socda guul iyo gobonimo asalaamu calaykum waraxmatullah galbeedka magaalada London iyo Shababush oo lagu magacaabo Shababush Health Center waxaana ka howlgelaya dhaqaatiir isugu jirta Soomaali iyo ajnabi kuwaasi oo ku takhasusay guud ahaanba daaweynta cudurrada kala duwan dhaqaatiirtaasi Soomaalida iyo ajnabiga ee Shababush Health Center waxa ay ku daweynayaan guud ahaanba cudurrada guud cudurrada uur ku jirta kuwa haweenka iyo kuwa carruurta iyo guud ahaanba arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka
xarunta shababush health center dhakhaatiirta joogtaa waxaa kaloo ay kugu talagaleen inay ku meel mariyaan sii sharciyeysan tallaalka dadka aadaya xajka iyo cumrada iyo dadka kale u safraya meelo kala duwan oo dunida ka mid ah iyo weliba buuxinta foomamka iyo arrimaha caafimaadka dadka qaadanaya laysanada BCO-ga iyo kuwa kale gawaarida waxaa xaruntaasi shababush health center ay ugu talagashay dadka ballanta isla maalintiiba in loo dhigo dhiigaga iyo guud ahaanba waxa kale laga qaadanaya in isla maalintiiba jawaabta la siinayo haddaba bulshooyaan la moogaan meel kastoo aad joogtaanba inaad la xiriirtaan xarunta shababush healthy center halkaasoo ay joogaan dhakhaatiirtii soomaaliyeed iyo kuwii ajnabiga ahaa oo weliba soomaalidu af soomaaliga ay kugula hadlayaan meel kastoo aad joogtaan baxoo beegsada xarunta caafimaad ee galbeedka